doorashada heer federaal weli uma socoto sidii loo qorsheeyey. waxaa lagu eedeeyey madaxda maamul goboleedyadu inay yihiin cidda gadaal uga dheggan geediga doorashada. sababaha ku dhegnaantoodu waa wejiye badan, waxaase ugu weyn kuwa uu sannadkan gubayo damaca heer federaal. 3 ka mid ah madaxda 5 maamul goboleed ayaa dhammaan laga soo wariyey inay sannadkan leeyihiin qorshooyin ay xilal sare kaga doonayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. warbixintan waxaan ku eegaynaa 3daasi hogaamiye iyo nin walba jihada uu u socdo, garabka uu heli karo iyo waxa uu ku doortay inuu ka tago maamul goboleedka uu hogaamiyo. ninka koowaad waa Siciid Cabdulaahi Dani, hogaamiyaha maamulka Puntland. waxa uu bisha Janaayo ee sanadka soo aadan u dabaaldegi doonaa 3 sano guurada madaxtinimadiisa Puntland. waxaa markaasi xafiiska uga harsan 2 sano. doorashada heer federaal waa dhaafi doontaa xilliga uu Dani xusaayo 3 guuradiisa. ragga wakhtigan soo gaarsiiyey doorashada heer federaal ayuu ka mid yahay Siciid Cabdulaahi Dani. waxaa lagu eedeeyaa inuu dhowr xaaladood isku aadinayay. waa musharax madaxweyne oo heer federaal ah. dhowr bilood ka hor si qarsoodiya ayaa loo dhihi jiray kelmaddaas, laakiin muddooyinkii la soo dhaafay si toos ah ayuu u bilaabay ololihiisa, wuxuuna soo saartay xildhibaanno. wuxuu sheegaa in haddii uusan tartamin inuu farmaajo ku soo laaban doono xafiiska, taas oo ka dhigan inuu isku arko ninka qura ee farmaajo ka hor istaagi kara kursiga. ninka labaad waa Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, hogaamiyaha Galmudug. waxa uu abuurtay xisbiga Waaye Arag. waa xisbi ku dhismay oo salkiisu uu yahay saaxiibtinimo soo jireen ah. tusaalaha ugu fudud waa Dhegey Geelle, Dhegdheer, Cabdi Qaybdid iyo Siciid Siyaad Shirwac oo dhammaantood ay Qoorqoor saaxiibbo isku dhow ahaayeen 20kii sane ee la soo dhaafay. kooxda Waaye Arag waxay sannadkan si aan lexleexad lahayn u sheegaysaa inay dalka ka rabto cadweyn. Qoorqoor wuxuu ku jiraa qiimayn. inuu tartamo dareen ah waa laga soo wariyey. inuu qof dhiso oo uu ra'iisul wasaare qaatana damac ah waa ku jiraa. haddii uu farmaajo dhisaayo isagoo ra'iisul wasaare doon ah, waxaan la ogayn sida uu isku aqbalsiin karo saaxiibbadiisa Waaye Arag iyo farmaajo oo aan aad isu jeclayn. Qoorqoor tusaalaha ugu fudud ee damiciisa waa inuu xildhibaanno ka dhigayo raggiisa ugu dhowdhow iyo inuu diidan yahay qof walba oo uu arko inuu musharax kale ku dhex jiro. bisha Febraayo ee sannadka soo aadan waxa u buuxsami doonta Qoorqoor 2 sano guuradiisa madaxtinimada Galmudug. inuu 2 sano ee ka dhiman muddaxileedkiisa ka tago dhib badan kuma hayso ayaa la leeyahay haddii uu cad weyn ka helayo dowladda federaalka ah. isaga iyo Siciid Dani waxay ka siman yihiin, midna Axmed Madoobe ayuu shirka la yahay, midna Lafta Gareen. damaca soo xoogaysanaya ee ku jira Qoorqoor wuxuu dharbaxa ku yahay musharaxiin badan oo ka soo jeeda Galmudug. ninka saddexaad waa Cabdicasiis Lafta Gareen, hogaamiyaha Koonfur Galbeed. inta uusan madax ka noqon maamulka waxa uu ahaa xildhibaan federaal ah iyo wasiir ka tirsan dowladda dhexe. wuxuu u tartamay xilka guddoomiyaha golaha shacabka markii uu Jawaari iscasilay. waxaan mar walba ka bixin oo uu qabaa damac ah inuu mar noqdo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah. siday xaqiijiyeen ilaha ku dhowdhow iyo qaar ka mida musharaxiinta, waxaa Lafta Gareen u qorshaysan inuu kursigiisu noqdo xildhibaanka ugu dambeeya ee ka soo baxa Koonfur Galbeed, kadibna uu qiimeeyo xaalka doorashada. haddii ay fursaddiisu fiican tahay, marka uu qiimeeyo xildhibaanada dhammaan ka soo baxay gobollada, wuxuu damacsan yahay inuu kursigiisa qaato kadibna u tartamo guddoomiyaha golaha shacabka. Lafta Gareen waxay dhibaata ka haysataa sida uu maarayn doono 4 guddoomiye baarlamaan oo hore oo xildhibaanno ka raba Koonfur Galbeed oo haddii ay soo baxaanna u tartamaya kursiga guddoomiyaha golaha shacabka. waa Jawaari, Shariif Xasan, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Aadan Madoobe. 4taasi nin markii la sii kala qaado waxaa Lafta Gareen u daran Shariif Xasan iyo Jawaari oo labadooda midkii soo baxay adag tahay in laga celiyo kursiga guddoonka golaha shacabka. labada kale uma badna inay Lafta Gareen ka adkaan karaan. 19 bisha soo aadan ee Diseembar waxa uu Lafta Gareen u dabaaldegi doonaa 3 guurada muddaxileedkiisa Koonfur Galbeed. 3daasi hogaamiye damacooda heer federaal waa mid aad u xooggan.
waxaase dhinaca kale lagu eedeynayaa in raajicinta damacoodu uu dib u sii dhigayo doorashada. maxay kula taadiga